dadkii isugu yimi beesha su'aal oo kamida halkan u yimi inay dareenka la muujiyaan waxaan leeyahay su'aal oo tashaday talaasoo waxa weeyaan Ahmed Maxamed Siiraay iyo Saleebaan 26 Juun wuxuu madidiyay ku soo celiyay maalin lagu bari maalin waan isu kordhinaya dagaal furaysanaya waxaan doonaa yeelaya haddaad waxaad doontay isu socon waxaad yeeli maayo waa keedika wax lagu samayn jiray waxa weeyaan haddaad dagaal furaysato waa la furaysanaya haddaad kibir samayso waa lagu joojin joog balawoon in aad ku xukumaysa ma jirto Saleebaan waxaan adigana ku leeyahay anigu golaha guurtay marka ma golaha carruurta ilaha oo golaha carruurta guurtayda waa halkaan noo fadhida wataasana hadintaan dooranay guurtayda nooyay madaxda nooyay reerku wuxuu dhigtay waxa weeye gola aan dheeli tiray oo sidoo ku samaysmay noognahay oo ragii wax loo dhigtay ka dhinteen waa carruurta wax oo maanu dhiiban golaha la duba uga fiirsanay asaan bulshada lahayn haday ku foofeeyeen hadii kan wax allaala iyo wax ay ku taraysaa ma jirto ummadii dalkan lahayd gobol waliba ka qeynaya waa muujinayna war inaga isu imanayno wax dhisanayna inaga hortooda wax ku dhisayna waa dadku waa wada hadlaya idinka idin ma xidna waa ku fashisheen waqtigiini waa ka soo bixi weeyeen wixii leedin igmaday waa ku filan weeyeen idin caayimayno oo waxba idinku warmay golaan idin keeninay kaga garnaqso oo wixii leedin ku dulmay haddii ummaddu idinka garashana war waxay halkaas ka dhigan maalin la ismaahin maayo beentan la bartay sharciga constitution-ka saynu meel kaga dhacaynaa maalintaas aad dhigaysaa xilka bil gudaheedna waalid ku wareegsisaa waa ku qoran haddaad doorasho qaban kari weyday waxa kalena kugu aaminayna waa maxay tii dowladaha hooseyna ogeyn ugu dambaysay war magaalada hargeysa koodii may wada qitaan waxaan ku yidhi war doorashada magaceedii ku aamini mayso ciid dambe oo aad xil u haynaysaana ma jirtee hayslu goynina dalkana ha gelinina khilaaf siyaasadeed oo aan cidhib lahayn waxa weeyaan qofku inuu yidhaaho waa mahadsantiin xilkii ilay dhiibtay maantaasuu igageegyahay waxaan ku yidhi madaxweynihii Lubnaan ameen laxud loola jiray shanankii meesha soo ku wareejiyey madaxtooyada ayuu furayaashii iyo xil wareejintii intuu sameeyey u dhiibay uu yidhi ciddii ay dadku soo doortaan aniga maanta igaga eg tahay war sidaasoo kale ummaddan rabaa inay nin waliba maalinta uu xilkiisa gaadho bannaankaa u soo dhigo xoodii haddaad samayn kari weydo inaad qabato doorasho waxulaana waxa burburay dhaqaale oo tuuga galay oo axsaabtii bad xaday oo doorashadii bad xaday oo dhaqankii bad xaday meel aad dalkan u dhaaftay ma jirto waa xaqiiq waxa ilaa iyo xamar baa ku celisay wax ummadda loo adkaysan karaysa intaa inka badan ma aha meel ka xun bay tegi ha gaarsiinina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.